السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني waa Arabsey News taawada ku soo dhawaada warkii xilligan Arabsey News qodobadaan ku soo qaadan doono waxa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka hadlay rabshado ka dhacay magaalada Boorama waxaana uu ka digay in amni darrada halkaasi la doonaya ay horseedi karto khasaare soo gaadha magaaladaasi. Suldaan Dawel oo isaguna ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa wax la yaabo ku tilmaamay in magaalada Boorama lagu arko dhalinyaro sidata cawjado ay ku jabinayaan meheradaha kadib mudaharaad ka dhacay magaaladaasi. Qodobada kale warkan ku soo qaadan doona waxa kamid ah xildhibaan kamid ah baarlamaanka dalka Mareykanka oo xabsiga loo taxaabay iyo Pakistan oo sanadkan celinaysa qoondadii dawladda Sacuudigu u qoondeysay ee dhinaca xajka. Qodobadaas waxay ka mid yihiin kuwan udun haynay ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kala faahfaahsan. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa sheegay inuu tabashada la qabo dadka reer Boorama laakiin ay tahay in si nabad ah loo baadi doono wixii ka dhiman gobolkaasi. madaxweyne ku-xigeenka oo ka hadlayay carwo laga daafuray magaalada Boorama maanta inuu qirsan yahay in dadka reer Awdal ay Soomaaliland ka helin waxa ay u qalmeeyeen. waxa uu sheegay in wixii reer Awdal tabanayaan si nabad ah loo wada baadi doono laakiin aanay suurtagal ahayn in la waxyeeleeyo magaalada Boorama oo ah magaalo leh aqoon soo dhaweyn iyo nidaamka biyo-gelinta oo uu sheegay inay yihiin ka ugu fiican Soomaaliland oo dhan. waxa uu dhinaca kale sheegay in magaalada Laascaanood ee colaadu ka taagan tahay ay heli jirtay in ka badan miisaaniyadii loogu talagalay mid ka badan oo ay garan waayeen reer Laascaanood laakiin reer Boorama inta badan hay'adaha lagu haleeyo maadaama oo ay nabad tahay. sidaa daraadeed waxa uu ka digay in reer Boorama ay sameeyaan wax la mid ah wixii reer Laascaanood ay sameeyeen sidaa daraadeedna aan loo baahnayn in mustaqbalka hoos u ooyaan. Suldaan Dawel oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa sheegay in la aqbali karin in dhibaato amni darro laga sameeyo magaalada Boorama dawladana looga baahan yahay inay wax ka qabato cid kasta oo dhibaato maagan. xukuumadii hore markay sodonkooday ay u yimaadeen ilaahay caafimaadka u daayay Axmed Maxamuud Siiraaye madaxweynihii hore waa ka ay hor joogay isaga inta kale maanta maqlaysabee sida dhaqanka siyaasadda Soomaalida ay fahmaan ama u arkaan in asaaqadooda go'ayso hadday runta sheegaan ama dadka uga raacaan arrintaasi ma taale ilaahay baa aaminsanahay inuu saacadan bariiska ka dhamaadaan ka tagayo waa garab galay waxaan madaxweynaha quuli waxay ku hadleen waa xaq waa wax ka dhiman dee u buuxi baa quuli nasiib darase isag xukuumaddii waqtigaasi waxay ka hawl ka qaban karaysay way ka qabatay waa xukuumaddii Siiraayo maanta joogta ee Muuse Bixin ka mid kahay hagartii wali iyo dhinaashii wali way qabtaan reer Awdal way qabaan wali way qabaan reer Awdal waxaana way ka dhiman yihiin maanta xisbiga kulmiye ee 13 sano madaxweyne ku xigay waa xisbiga horumarka iyo maarta dalka dhismaha u badan galiyay laakiin hawshaasi reer Awdal way ka qatay laba jeer bay reer Awdal qatay xukuumadoodii 8 sano jirtay ee daayirayaal ka ahayn madaxweynaha ka ahaa xishood buu ku dilayo wuu qadiyo waxa masiina kuwii xukuumadii cusbaan ka mid ahay reer Soomaaliland kulmiyana waxaan leeyahay reer Awdal wax karadeen waxa salaaysa reer Boorama waxa leeyahay dhalinyarta adeerka iyo aabbaha wahay waar waad la qabnaa waxa dhiman Soomaaliland inay run isku sheegto ayaa qurux badan inaad baanbaaniyo isku muraafaqadeen oo isku guuloodeen maaha waxa dhimo waa la og yahay laakiin se hay naga duminina aqalkeena naga dumino waxa dhiman darteed inta ilaahay nasiiyay inta idinku maartay kasbateen horta reer waxa lagu haleeyay sheegay waxa loo hakarada lagu haleeyay waa meesha ugu degaarasho badneedo. Suldaan Dawel oo ka hadlayay rabshadihii dhawaan ka dhacay magaaladaasi ayaa wax la yaabo ku tilmaamay in Boorama lagu arko dhalinyaro cawjada sidata oo meheradaha jabsanaya isla markaana boobaya alaabta taala. waa ka xunnahay horena waan u sheegnay maantana waan ku celinaynaa inay saraakiisheenu ku dhimato macna darro oo waliba ciidankoogu laayaan waa mid aad iyo aad aan loo aqbali karin xukuumaddana waxaan leeyahay qodobka iyada
waa in laga yeeshaa warcad waxa kale oo sheegaya arinta iyada sidii ehelkii u go'aansadeen inaka la dilay ka soo jeeday sida ula gudoonsadeen ehelkii inaka wax dilay uga soo jeeday ayuu arkaas ku dhayahay fulinta iyo dhamaystirkana xukuumadda iska leh haddaanu duqeydannahayna waanu ku daba joognaa waanu daba taaganahay in hawsha iyadii sidii sharcigu ama nidaamku ahaa xukuumadeed inay u marto taalkaasaan ka tagayaa waxa weeye magaalada wixii maaldood ka dhacay wax la aqbali karayo maahay wax beeninayay hayd waa gobolkii aqoonta iyo gobolkii xadaarada way beeninaysay dhalinyaro xaydan in la arko xawjada sidata wax la aqbali kara maahay inay dumarku daba yaacaan wax la aqbali kara maahay war labada daar waa in la galo way daarta la inagu amaanayo la inagu tilmaamayo wanaaga waa in lagu soo noqdo way waa arin aad looga dabqada way in meherada iyo dad wax leeyihiin in la burburiyo in hooyooyin tamaandadii iyo basashii dabadul jooga iyo muuski magaalada la mari waayo laga hurgufo ومن سبحان الله وي mid dib loo dhigan karo ama la eegan karana ma hadda cidi soo waariday way ku soo waariday xumaanta iyo dibka ku soo waariday magaaladan waxaan u sheegayaa inay dib uga soconi ka socon mayso haddii cid gudaha la jooga la isticmaalayayna waa la wada jooga hadda waxaan ku dardaarmayaa waalid kasta iyo waayeel kasta iyo aqoonyahan kasta iyo cid kasta wax garanaysa inay gurigiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo gudaha magaalada wixii jira inay hoos ku noqoto intay hadhow dabad socon lahayd waxaan ku soo gunaanadayaa cid waliba shaqada leedahay qabsato shacbigu shaqadu leeyahay qabsato xukuumaddu shaqada leedahay qabsato gacmaha la isqabsado arinturi waxaan raali galin ka bixinaya anigoo ku hadlaya afkii duqeyd waxaan raali galin ka bixinaya shirkadihii gaarka loo taarget gareeyay ee reer ahaanta loo taarget gareeyay ee ka baxsanaa reerka gobolka degan aad iyo aad baan uga xumahay aadna waan u raali galinayaa waxaan leeyahay waxay tidhi ina kastoo iswaalan fooli hadday timaado guud qarsiina hadhay arrintan ha laga waanto duufariin meel galka soo dirayeen waqti badan yuuna ku lumini hadduu halkan joogeen waqti badan yuuna ku lumini gobolkani waa Somaliland dadkani waa Somaliland dunyadani waa Somaliland waxaan ka soconaynin oo meel gaadhaynin cidii ku dawaqtay adaa garan caruurta yaryar ee birbarka loo soo dirayana waxaan leeyahay waalidiintoodu ha qabsadaan qabsada baan leh gacmaha la isqabsanaya hoosba waxa loo eegayaa waa la arki doonaa cidii wax wada cidda kasta oo horumarinta iyo wanaagga wadana waxa weeye waan ugu ducaynaynaa waa ku bogaadinaynaa waxaan leeyahay jaamacadda eelo cuntada dibadda uga timaada saameyn weyn ayay ku leedahay caafimaadka iyo nolosha ummadda Soomaalida waxaana ku baxa dhaqaale aad u tiro badan oo lagu qiyaasay $100 milyan oo dollar sanad walba haddaba sharikadda Roobron ayaa hadda gacanta ku haysa hirgelinta dalagga ugu baaxadda weyn dhammaan deegaanada Soomaalida Roobron oo isticmaalaysa qalabka casriga ah ee biyaha u qaybiya dalagga beeraha ayaa waxa ay soo saaraysaa qamadi iyo midhaha saliidda oo ay ka iibinayso warshadaha daqiiqda iyo warshadaha saliidda taasi oo khusaysa dhammaan dadka faa'iido doonka ah ee dhaqaale abuurka ku xeel dheer iyo haddii aad xiisaynayso inaad saami dhaqaale ku yeelato sharikadda Roobron wixii macluumaad ee dheeraadana kala xiriir www.roobron.com